degmada xuduna gobolka Sool 16 sano kadib waxa lagu qabtay munaasabada qiimaha badan ee 26 Juun waxaana degmada ka dulbabanaya hawada sare calanka cawaale iyo kan SSC Khaatumo shacabweynaha ku dhaqan gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa ka go'ay Somaliland taasoo sababtay in dhiig badan ku daato isla markaana ay dagaalo soo noqnoqda ka dhacaan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dagaalada soo dhaxeeya ciidamada xoogagga SSC iyo kuwa Somaliland xafladan oo ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ugu horeyn halka ka hadlay Caaqil Maxamuud Caaqil Askar Jamac والصلاة والسلام على رسول الله شعب كرير حدن halka isugu yimi munaasabada 26 Juun waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maanta oo ay 26 tahay sanad guuradeedii ayaa loo dabaaldegayaa waxa looga dabaaldegayaa xaruntii daraawiishta xudud sida ay caadadeedu tahay annagu barooran mayno waxaanaanu barooranayn kii naga dhintay dhulkiisibuu ku dhintay sharaf buuna ku dhintay marka ay wixii dhintay ilaahay ha u naxariisto waa shuhadaa wixii dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo waa dagaal xaqdarro ah iyo duulaan bahaldhimo ah oo shacabka lagu soo qaaday 24 iyo 25 ba wayna soo wareereen maamulka Somaliland 24 bisha iyo 25 ba iyaga weerar soo qaaday weerarka waa ku jabeen sida aanu warka aanu hayno marka ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa waa dhulkayagii waa ku dhimanaynaa diyaar baanu u nahay haddaan cidi naga hadhaynin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul baan idiin rajaynayaa biidillah adduun iyo aakhiro waa meesha xudun waa halganka waa tii daraawiishta waa soo dhowaynayaa waa xuskii 26 Juun وسود ويننا اللهم صل على محمد كذا كله وحنونغو حرة أولك كقعدني بينو يسوي مننا هدي اللي لحية لبعتك تقول وأنا همسينا وحيد انتنا إلى إنه حرسته قالها بلارن اللي يسوي حفلة قيمها يغايها له كوسابسن إن أرميه إنه كوسودق بيشريه كوسونولين وبقادرنا وكفر أحسنها ونسي وضعنا وحن نوكي مقدنا وحن ودلنا ما هو دلنا تهذا ودلنا وانا وضعنا لمن كنا كوشقينا يغاب كقال هذا كنا تياهو يا كنا تياهو لمن كنا كوشقينا يوم إلهي لما شرو نين قال لا شرو وحي هوشي قال كوشرنا إلهي لا شري مايو إسلام بانونا هاي goobanimaanu ku jiraa kuwii gaalada naaray ee saaray ee ka shaqeeyay baanu nahay idina la jaad baateen way saarayna وإلهي مهدي إنك حرة وهميجينا iyo fikirkeena ka hadlayna inaynu u dabaldegno sanad guuradii 26 Juun waxaad ogtihiin ninka la dhaho Musabixi inuu yidhi 24 iyo 25 iyagana soo weeraray waa fulay dhalay iyo dhashi waa beena waas laga adkaaday 25 iyo 24 wuxuu sheegay in laba laga dilay war laga guutaa la cunay inta qarsoonna adiga dib ka sheegi doona waxaan doonayaa 200 ama 300 tiknikada ay garowe joogtaa in la soo dareeriyo aanu hareeraha ka marno qaniimadana aynu si fiican u qaadano nimanka garowe jooga ee doonaya inay kursiga garowe shacabkii Laascaanood laga qaxiyay dib noogu soo qaxiyaan umrafiicdu leesaan waxaan leenahay ma geyno mana doonayno waxaanu diyaar u nahay oo aanu doonaynaa inaynu hareeraha ka marno qaniimadana harti oo dhan ay wada qaybsadaan
mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dawladda Puntland iyo nimanka mucaaradka inay joojiyaan colaadda meel baa inagu furan inay si degdega iyagoo aan cidna aanay la hadlin cidna aanay kor baalkasmin inay ciidanka sida ugu dhaqsiyaha badan 48 saacadood soo socda ee ciidanka soo geliyaan gooja cadde danimadana aanu si xaqa oo cadaalad oo hartinimo ku jirto aanu qaybsano waynu guulaysanay mar labaad iyo mar saddexaad ha u baqinina inta wada waxay qaadayaan hees la dhaho qaranka ha u baqinina wala qarankii wala soo gala والله صقلي مصبيحي أنا كاهن يورجع مدح وين وحلا يراضو ما قانة ما قاعد هذا اللي كل شيء يومي أنا كاهن يا موسى يا قال كات شيء سانو ما قاموا في هاي دلني يراضي مالو البصار ريا إيشام على كسر صاريا هو يوين كي قبل من أيام وحاول خير بدنا القيامة ولا ويدينا ينا كتشوجا يجوينا يمادان بشرف بدن يجا جوابي يجا عمركو هرين يجا خاتلوينا يجا دقي عبينا يجا إسلام بركعي وجريوه دي يبيدت كودي يبرودي كساري يجو هاي مادي يجو هذا الرجيين يجو هذي يا كتشران هاي مادي الموسيقى كاي هاي مادن يا ولد مدح وين هاي مادن إلهي بعد أرت قيامنا الله حسابته مياه هكذا يا ويلاش يران عراني حبيب تله صدق أصايص صار عن كوتش عد هاي مادن ها حريان رجع يسكعليا رجع وارج موادينا وارج شهيدة داره هذي بالدمية هو يوين كذا لقحية دمر كذا باللقحية عرور كذا باللاية رجنا في مال ربطنا معها لكن يا أبو حرقيسها كسوك عن جده هذا دحين يا كشران ويرجعين حين يهدى كشران إن كان إلهي وحنا نكبر يعني نقولش عد الصوت قبل إلهي كرتشين إنه يمادى إلهي كرتشين وموسى يمادى دل كان ندبه لمايا وحنا في عين تعينا كربحة أنت عينا كربحة بوفع حسن شيخ وحنا لنا مدحوينها يجب تعونك سلامنا وحد دون تتباهوا داني وحنا لنا مدحويني خير الله كسي عيدان كدقدق نو سو غارسي ما جرتana waxaana hiil walaalyaal ka daay fidmada maanta inoo ma taalo halgan ku meel buu ina kaga furnaa maanta taa ma jeedne ina ka joojiya kun goor baanu idin baryaynaa ina ka joojiya hiil walaalayaal ina ka joojiya danina waxaan leenahay walaal ciidanka ina la soo gaar Muuse inuu indhihiisa wax tusnay wax tusaynaa waxaan idinku salaamayaa salaanta xaqa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u hambaliyaynayaa oo aad u soo dhawaynayaa oo aad ugu tahneedaynayaa munaasabadda halkan ka dhacday 26 Juun waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo alxamdulillaahi rabbil caalamiin mahadda Ilaahay baa iska leh Ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa mahadda labaadna waxa iska leh garaadadeena kuntiga inoo xidhay ee gobonnimada isku keen barbar taagay ee halkaynu maanta marinayna gaarsiiyay salaanta labaadna waxa iska leh 33 jilbaha u aastay ee madaxda ee ku guuleystay Ilaahay garabkooda ha istaago taxigtana waxa leh ragga soor sanaag iyo cayn iyo ragga harti koombe ee jiida ku jira ee ku dhintay ee ku dhaawacmay ee dhaqaatiirta noogu jiifa إلهي بكون إلهي بقرب تاجن وأنا أدعو عينينا واحد نواقف كأنه واحد غالية كيد أنت قلبي قاسي نجوا قريه هاي كيد دعوة من قلبي قلنا نجوا قريه هاي كمان تنولينا تعرف من نجوا قريه موسى أنا وحبا أورن ما يوحي الأورن لا هراء لو يدي موسى هذا كنا مقالو مركا موسى أين كاهن ثلاثة دو وإنه إيرنا ماشي دكتور لكن وحبا أورن ما يدي أنا وحبا أورن ما يدي مشارتنا وحنا هاي ولا ليالو وعتي قرب كيجا مشارتنا ورسنجلي يا هرتكم بوحنا هاي وادسكايا بربر تاكتيني بربر تاجي نيود عسابي غلاد أكبرنا غفرتنا نجاتشوتيا وإن السلامنا ولا ليالات بندوس دويننا علاد ديننا ونكحنا هاي الله ببقينا برا سمريو مدحوينا هدرنا وحنا هاي adiga iyo diyaano iyo wixii kale madaxaba cimrigeena naalaha barakeeyo ciidankana noogu roonaada isla saxana inamada jabahirta jiida ku jira ayaan aad u bogaadinaya soor sanaag iyo cayn iyo heer harti ilaahay garabkiina ha istaago
إلهي قرب كي نهايستاغو قول يا قبنيمو قول يا قبنيمو قول يا قبنيمو الحمد لله رب العالمين ولحي لا تركي جون xornimada loo soo celiyay dalka Soomaaliya waxa weeye waxa xudun xuquuqsan oo jooga wiilashii xornimada soo celiyay الحمد لله رب العالمين gabadha wiilasha ka dhalatay gabadh qaaliya dheh waxaan kaloo xusayaa horta ilaahay baa mahadle oo ilaahay baa mahadle oo ilaahay baa mahadle ilaahay calankeeni buluuga ahaa ee sharafta lahaa iyo faraskeeni isugu soo keen qoofalay wiilasheeni sharafta badnaa ee ka saaray gobolka Sool Muuse Biixi iyo qashinkiisii wayaan anigu xudud waxaan joogay laascaanood iyadoo inamada yar yar ee maxay tabaashaasha wata la gumaysto haddii halka lagu dilay walaalkaan ku heelinayn markaasaan oo jiro qiiroon jiray waxaan ka qiiroon jiray ragga daraawiista ku magacaaban ee nin isaaq hiilaad kala dhacay habloodii aan dhidhiyay ama wiilkoodii yar inta la xidhay la toqontoqeeyay maantana inta shirkiya beebe la dhacay baa laga saaro garoonka saa u xiraysan gooja cadeysana waa lagu gubayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ha garab galo gudideena 3 garaadadeena qaaliga oo waliba aanaad u xasayo garaadkiisu keenay ee ahaa maxay ahayd tooy garaad jaamac garaad Ismaaciil ayaa gogasha dhigay oo dhulbahantay isu keenay garaad jaamacow salaam baan ku soo marinaya hawada adiga isu keenay gudida 3 iyo garaadada qaaliga ee halkaas soo gaarsiiyay maxay ahayd tooy waxa ku xiga garaadkeena garaad jaamac garaad Ismaaciil garaad jaamac garaad Cali oo nin qaali ah oo isaaq oo dhan ka ohiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay iga dhaliyay marka waxa weeye heel harti wajarteen waxa weeye habeenkii u horeysay habeenkii xigtay ee uu dhacayay mudaharaadku waxa weeye wiilashii istaagay oo hartinimo isu taagay oo inaad hartinimo isu taagay maanta inaad garow xabad kula noqoto annagoo idin soo qaxnay oo maatadii hoganayso caruuri hoganayaan nagaba kin qabato hala joojiyo colaada daarood oo taharti hala joojiyo oo yaanan maqlin waxa dhagtayadu mar dambe ay maqlin ilmaanay rayaalow gacali ay dhagtayadu maqlin dabaaldegyada 26 Juun oo ah maalin kuwan Soomaalida ayaa laga dareemayaa deegaano badan oo hoos yimaada degmada Xudun ee gobolka Sool waanigu Maxamed Maxamuud Cawiil kawte degmada Xudun ee gobolka Sool